roobku markuu soo da'o ee webiyadu dareeraan 5 bilyan oo tan oo kimikala bay badda geliyaan oo nooluhu u baahan yahay hadduu dhulku abaarsado baddana waa abaarsanaysaa roobkaasi hadduu di'i waayo ilaahay muxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun cirkaasay jirtaa baa ilaahay yidhi arsaaqdiinna iyo waxa laydin yaboohay dhammaantii roob hadduu di'i waayo kalluunkuna wuu dhammaanayaa badda waxa ku jiraana waa dhammaanayaan waayo mineralskay dhulka ka helayeen oo dhan heli maayaan bale oxygen ku filan heli maayaan waayo roobka badda hela waxyaabaha uu badda geliya waxaa ka mid ah oxygenka saa daraaddeed kalluunka laftiisaa abaarsanaya hadduu roob heli waayo noloshan sidan u dhisan ee ilaahay subxaana wa tacaala saatan u sameeyey biyuhu khasaa'ista ay leeyihiin noolaha kaloo dhammi ma leh kimikaliska kaloo dhammi ma leh walidaalik biyuhu markay 4 degree gaadhaan baa densitigoodu ugu culus yihi hadday ka hoos maraan waa maxay wuu fududaadaa waa sababta ilaahay ugu talagalay in badda waxa ku nool yihiin wailaa hadday 0 degree markay sii gaadhaba hadduu densitigu sii cuslaanayo barafku hoostuu mari lahaa iminka barafku dushuu sabeeya hoostana biyaha sabeeya haddii biyuhu ay la mid noqon lahayn materialka kale markay sii qaboobaanba densitigu culaysku sii badan lahaa oo biyuhu ay barafku hoosta maro noolahoo dhammo dhiman lahaa ilaahay markuu uu kala bedelay baddaa waa la dhanaaniyey lowlaa aanay dhanaan ahayn dunida qudhumuun baa loogu dhiman lahaa milixdaa ay tahay ee leedahay ayaa badda waxa ku bakhtiyey iyo waxaynu ku gurayno iyo waxoo dhan urtooda bedeli lahaa wa ilaa dunidoo dhammi ur bay u dhiman lahayd hadday biyaha baddu macaan yihiin waxaynu isleenahay hadday baddu inoo macaanaato mala biyaad ka dhergi lahayd baad isleedahay maad noolaateen yacni noloshan sida ilaahay u dhiga ay u taallo hadday bad tahay iyo hadday barri tahay hadday xayawaan tahay hadday miqdaarka biyo ee cirka ka soo da'aya tahay hadday temperature tahay hadday yacni dhulku waxay dhahdaan ilaa 100 degree buu temperaturekiisu kala sarreeyaa marka loo eego equatorialkiisa iyo maxay iyo north polkiisa haddaanay sidaa ahaan lahayn bay leeyihin nolosha ma jirteen wax kastoo innaga aynu isleenay malaa sida kalea ku fiicnaan lahaa scientifically waxay leeyihin hadday sida kale ahaan lahayd noloshu ma jirteen taa macnaheedu ayuha alikhwa waxa weeyaan dunida tan aynu ku nool lahay waa halkaa uu ninka saynisyahankay ka leeyahay waa tailor made for man buu yidhi waa bahal loo dawaariyey bini aadamka loo dawaariyey wa ilaa intanoo dhamm inay sudfa ku dhacdo koojanis ay ku dhacdo waa waxaan suurtagal ahayn waa anaynu shalay soo tilmaamnay wax allaaliya waxay sheegayeena koojaniskoo dhamm inaan waxba ka jirin waa laba daliil waxa aan sheegay mid waa qadiyatu taskhiir ama mabda anthropic oo ah bini aadamka noloshiisa in waxaan loogu talagalay in kownkan cid musammima oo sii takhtiitiso ku talagashay noloshaasi inay ka jiri karto ay jirtaa ka labaadna waxa weeyaan inuu fine tuned yahay meel kasta halkay saaran tahay haddii in yar dhanun looga dhaqaajiyo plus or minus dhanku u dhaqaaqaba inaan noloshu jiraynin daliilka saddexaad ee aan tilmaamayno daliil kastaaba saacad u qaadan laha haddii la sharxayo waa daliilu liijaad aw ilxuduud waa daliilkay falaasafadii horena daliishan jirtay iftiinka cadceedda ilaahay subxaana wa tacaala enerjigu inaga siiyaa noolahoo dhammi ku noolyihi waayo haddaan enerjigeeda lahaynin dunida wax chemical reaction oo ka dhici lahaaba ma jiro caleenta yaree geedka ku taalla waa warshadda ugu weynee dunida ku dul taalla uguna qayliya buuq yar soo moogada caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya waxa noolaha kor saaran dunidoo dhan geedka iyo xoolaha iyo waxoo dhan caleen baa soo saarta waxay cunayaan caleentu geedkay soo saartaa wuxuu cunayo geedkana xoolo iyo wax nooloo dhan baa daaqa waxaan noolna waa isa sii cunaan waxa laaliya waxa kownkanaynu saarannay saaran maanta dhulkaynu saarannay saaran warshadda keliga soo saartaa waa caleentaa yar iyana photosynthesis yaroo ay cadceedda inooga qabato ayay farsamadoo dhan ku samaysa ilaahay subxaana wa tacaala ifkaasuu cirka ka keenay inta gaama raysiya waxaa rayse caafimaadka waxyeelo oo dhan atmosferigaa laynagaga celiyey spectrumka atmosferiska lightka soo dhaafaa intuu yahay waa inta noloshu ay u baahantahy saban kalariskan iyo inta yare ku xigxigta xataa badda markuu ku dhaco iftiinkaas
maalan casaanku spectrumkan badda markay biyaha nalku ku dhaco casaanku 18 mitir buu ku dhammaadaa that means 20 mitir haddaad badda quusto nabar kugu dhaco dhiiggaaga arki maysid waayo wax casaan la yidhahdaba kama jiraan yalowgu markaad 100 mitir gaadhaa buu dhammaanayaa greenki iyo bluegu waxay dhammaadaan maxay 240 mitir waayo iyagu waa kuwa photosynthesiska sida si dhirta baddu ay u baxdo noolaha badda ku jira si uu geedkiisu u bixi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala nalalka kaloo dhan meesha sokaa lagu reebay laakiin greenka iyo bluego photosynthesiska waxay ka kariyaan dhirtu cunnada ka sameeyaana ilaahay wuu sii daayey ilaahay ay ka gaadhaysa 240 mitir roobkaa cirka ka soo da'aya biyaha ilaahay wuxuu ka dhigay dissolvable wax kastaaba ku milmi karaan inta ugu badan mineralsku waxay ku milmaan waa biyaha